salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada daawadayaal janaalka Kaafi Channel. Maanta daawadayaal waxaan soo gudbin doonaa taariikhdii hore ee dowladda Cusmaaniyiinta burburtay iyo dalka Turkiga, maadaama ay tahay xarunta ugu weyn ee dowladda Cusmaaniyiinta dalka Turkiga. Waxaan baan ka daawan doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraaho. Kusoo dhawaada. Boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo lagu dhawaaqo luqadda Turkiga Imparatorlugu ama Osmanli, sidoo kale loo yaqaano saldanadii Turkiga. Cusmaaniyiinta Turkiga waxay ahayd boqortooyo Islaami ah oo awood u yeelatay qarnigii 13aad deegaano ka mid ah waqooyi galbeed waddanka maanta loo yaqaano Turkiga. Intaa kadib, asal ahaan waxay bilaabatay boqortooyadan ismaamulkii Anatolia. Waa waqtigaasi waxaana markiiba awoodda qabsaday ninkii lagu magac daray boqortooyada Cusmaankii. Intaas ma soo gudbinayna hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. Fadlan subscribe saar haddii aad kanaalka cusubtahay.